maalin wanaagsan ku soo dhowow kubadda cagta tube. xubintan waxaan kaga hadli doonaa ama aan ku eegi doonaa qaabkii Soomaalida inta badan isticmaasha Facebook ee la socda kubadda cagta ay uga falceliyeen guuldaradii soo gaartay Manchester United. waxaan fiirin doonaa Facebook walba iyo waliba waxyaabaha looga hadlay guuldaradaasi. xubintan way cusub tahay, waxaan fiirin doonaa qaabka ula falgali doonaan daawadayaasheena oo ka qayb gali doona soona qaadan doona xogta ay soo dhigeen bartooda Facebooka. sidoo kale shakhsiyaad caan ah ku soo qaadan doona, balse maanta way ku yar yihiin shakhsiyaadkaas. haddii xubintan ay noqoto mid hirgasho ayaan ku soo diri doonaa. Ibrahim Benabene oo groupka Sportskii hore ku taageereeyay warbixintii uu kaga hadlayay Manchester United guuldarada, wuxuu yiri waa uu qoslay San Sibakaron raadi guuldaro ka raadi, waa raaliyo guuldaro ka raadi ayuu ku soo qoray. Cabdullaahi Cismaan Salaad wuxuu ku soo qoray halkan kawac taageera Manchester United waxbaa haysta half time kan, waa xilligii Manchester laga dhalinayay goolka labaad ee Victor Lindelof ay ku dhacday. Zakariya Cabdi Maxamed waa mid ka mid ah wariyaasha idaacadda ciyaaraha FM iyo mas'uuliyiinta ugu sarsareeya. xog ayuu nala wadaagay waa bilaabashadii ugu xumeed Manchester United ay la timaado 7 kulan oo ugu horeysay horyaalka tan iyo xilli ciyaareedkii 1989 ilaa 90. waa xilli ciyaareedkii Sir Ferguson uu qarka u fuulay in shaqada laga ceyriyo, balse isku badbaadiyay inuu FA Cup qaaday, waxaana xigtay in 13 horyaal oo Manchester u qaaday. laakiin Jose uma eka fursad dheer oo Manchester inay siin doonto. waa suuragal. Mukhtaar Maxamed Cabdi waa shakhsi caan la yaqaano, sidoo kalena muuqaalo shactiro ka sameeya wareysiyada ay sameeyaan tababarayaashii iyo ciyaartooyda. Sportskii hore ayuu ku taageeray, wuxuu yiri Mourinho waa macduur, mugna waa maskiin ku yah oo soo qoray. Mustafa Maxamed Cismaan isna wuxuu leeyahay waqti xaadirkan Ma United taageerayaashooda waa sidaan sawirka idin muuqdo ka hadlay. Cabdiraxmaan Xasan Anteeno waa shakhsi caan la yaqaan, saaxiib sir waan ku salaamay. Manchester una taageera, waxba Ingiriis ha baranin, Pogba iyo Martial ayaa ku turjumayaane ee dhaqsi imo yiri, waxba hanoo barano yiri Ingiriiska. Nuurdiin Daaya saaxiib sir waan ku salaamay. isna wuxuu leeyahay Liverpool oo taageera Nuurdiin Daaya intaan ogahay. Mourinho xaaladiisa, Mourinho kaliya ku soo koobay. Moha Bashi wuxuu yiri full time West Ham 3 Manchester United 4. West Ham 3 4 dudaaye United. Hazard 3 lay, Rashford 1 gool. hambalyo shactire ka tahay. Moha Bashi mar kale Super Salah saaxiibkay Chelsea oo taageera caawa Liverpool isku dhagan yihiin. sawirkan uu soo qaatay sida aan la socono toddobaadka hor West Ham waxay la ciyaartay Chelsea, waxaana lagu soo qoray toddobaadkii la soo dhaafay West Ham iyo Chelsea. West Ham United ayaa bas dhigatay. toddobaadkan West Ham iyo Manchester United ayaa bas dhigatay. marka sawirka hadlaya la yiri, markaas lagu hoos qoray Ma United taageerayaashooda ka warbixiyaan. Shaafici Cabdi Maxamed wuxuu soo qoray Pogba kabtan ma ii noqonayo, tartiib leh caawa 6 sac iska siibo. wuxuu la jeedan fahmin. Najiib Maxamed Ma United hal mar ku qosla asxaabay, saan waa ceeb. United 1 West Ham 3. Umar Disham Balogranes wuxuu soo qoray Ma United eber West Ham 2 qaybtii hore ka hadlayay. haddaan iraahdo Ma United waa mar horaad dhimatay miyaan khaldanahay uu yiri. West Ham galabta casriye ay ugu sii soconayaan Manchester United reer London ayuu yiri. Super Salah mar kale ayuu post soo qoray koox numberka 10aad Rashford numberkeeda 10aad Rashford yahay uu yiri ayaad nagu oominaysaan maalin walba. wuuna qoslay. Maxamed Taliano Rosario wuxuu soo qaatay boorkii Pleasure ay sameysay. waxaan soo xusuustay taageerayaasha Gunners oo ku digrin jiray Wenger out. maanta cajalad cusub ayaa daaran oo ah Jose Mourinho out. waana kana sawirka maanta Old Trafford waana garoonka London Stadium korkiisa lagu arkay. idin kale waaye anagu waa tashanay. Cabdiraxmaan Xasan Anteeno ayaa mar kale sidaas soo qoray. mar kale wuxuu leeyahay Cabdiwali Daacadinho we will come back ayuu yiri. Uroninkan uu qoslay waxaan lagu soo mention gareynaa yiri Jose Mourinho ay keenay. Usmaan Abubakar Shadar wuxuu yiri Jose Mourinho waa gedinaya, waa guuro, waa geediyaa. Jose Mourinho waan
geediyayaa waan guuro socdaa oo waan soo ganaano waa u gabay ninkan Ma United board to sack Jose Mourinho waa inay Mourinho buriyaan u leeyahay kaalay reer Chelsea waxaan may u adkeysan jireen walle indha adeeg badnaa yani Chelsea lagu weeraray bostigaas ayaan Bashiir Abdullaahi waxay tiri am happy losing Manchester United ku faraxsan Manchester laga badiyo because I am happy staying in Old Trafford wallahi ay tiri Jose out please Manchester retired balse way ku faraxsan tahay guul darada soo gaartay kooxda Manchester intaas waxay ahaayeen qaar kamid ah asxaabta Facebook and friendska ku nahay ee ka falceliyay guul daradii Manchester United ay kala kulantay kooxda kubadda cagta West Ham xubintan waan sii wadi doonaa hadii ay noqoto Messi hirgasha waad ku maasantahay daawashadaada asxaabtaada aad ku mention gareyn kartaa qaybta hoose ee commentiga maasanid